ma ogtahay in Ukraine ay ahaan jirtay dalka saddexaad ee haysta hubka nuclear-ka ee ugu badan yacni madaxyada nuclear ee ugu badan ay haysan jirtay oo waxay ku jirtay kaalinta saddexaad kaliya Ruushka iyo Mareykanka ayaa ka horeyn jiray xagga haysashada hubka nuclear-ka balse waqti xaadirkan la taagan yahay Ukraine hal xabo oo ka mid ah ma hayso hubka nuclear-ka ee horaan gacanta ugu hayn jirtay oo dhammaantooda waa ay wareejisay arrintan qaabka ay ku dhacday ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa balse intaan muuqaalka bilaabin waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka la gareysaan page-kana aad soo follow gareysaan aad iyo aad u mahadsantihiin ugu horreyn haddii aad ogtihiinba Ukraine horaan waxay ugu tirsanaan jirtay midowga Sofiyeedka yacni midowgan oo Ruushka hormuud ku ahaa ay ka tirsanaan jirtay midowga Sofiyeedka hub uu lahaan jiray ayaa waxay yeeli jireen gudaha dalka Ukraine kadib midowgan marka uu burburay Ukraine waxay gacanta ku haysay hub nuclear oo tiradiisu gaaraya ilaa 1900 sidoo kale waxay gacanta ku haysay gantaalo oo qaaradaha iskaga kala gudba oo tiradooda ayagana ay gaarayso ilaa 170 xabo sidoo kale bambooyinka sida xun wax u gumaado ayay gacanta ku hayn jirtay kuwaas oo ayagana tiradooda lagu qiyaaso ilaa 44 bambo Ukraine hubkan dhammaan ayay gacanta ku haysay balse Ruushka, Mareykanka, Faransiiska iyo Shiinaha iyo Ingiriiska ay heshiis la saxiixatay oo heshiiskaas oo damaanad qaadaya amniga guud ee dalka Ukraine kadibna Ukraine ayadana waxa ay balan qaaday in ay wareejinayso dhammaan hubkan qatarta badan ee gacanta ku hayso ayna ku wareejinayso Ruushka oo asal ahaan asiga lahaan jiray hubkan nuclear-ka iyo hubkan kale ee Ukraine gacanta ku hayso Ukraine ayadana waxa loo damaanad qaaday amnigeeda oo yacni Ruushka ayaa damaanad qaaday amnigeeda muddo 30 sano ah ayay arrinkan ka soo wareegtay maanta oo la taagan yahay Ruushka waxa uu duulaan ku yahay dalka Ukraine يعني روسكا هوران u damaanad qaaday amniga dalka Ukraine ayaa maanta wuxuu duulaan ku yahay dalka Ukraine oo burbur baaxad leh ayuu ka geysanaya Ukraine kaliya ma ahayn dalka haysta hubka nuclear-ka yacni dalka kaliya ay yaalaan hubka nuclear-ka ee midowga Sofiyeedka lahaan jiray kaliya Ukraine kuma aysan koobnayn sidoo kale Kazakhstan iyo weliba Belarus waxay ka mid ahaan jireen dalalka ay yaalaan hubka nuclear-ka uu lahaan jiray midowga Sofiyeedka dhammaantooda waa ay celiyeen waxaan lagu celiyay gudaha dalka Ruushka Ruushkana maanta wuxuu ka mid yahay dalka haysto madaxyada nuclear ee ugu badan dunida yacni kaalinta koowaad ayuu ku jiraa سيد أركت أركان أركتها قيبت كومنتين اللي هو ذاك مقال كان لاجري بيت كنا سوف لقري أدي أدي وما سنتي